بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن خيارتا نلا سعوتا ميل كستو دونيدا كجوكتان واللبدا بشا أغسطو سندكا لبا كل حيلباتان wararka gobolka bariga dhexe ee dhacdooyinka wargeysyada ay qorayaan ayaan rabaa inaan idin la wadaago iyo waliba sheekooyin waaweyn oo ka soo baxaya xiisadii halkaasi ka taagnayd madaxweynaha wadanka Mareykanka oo la filayo 24 saac gudahood inuu qaado weerar xoog leh ayaa ku dhawaaqay in uu dib u dhigay duqeymihii kadib markii uu sheegay in codsi uga yimid dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran taasoo la xiriirtay dhinacyadu inay gaari karaan heshiis dhameystiran haddaba hadalka Trump uu sheegay isla markaana uu ku jeejiyay duqeymaha macnaha iyo nuxurka ka dhex muuqanaya ee la dareemayo muxuu yahay dhinaca kale dowladda Sacuudi Arabiya wakaladeeda waas ayaa ku dhawaaqday saaka wada hadal xasaasi ah oo dhinaca teleefanka inuu dhex maray madaxweyne Trump iyo waliba dhaxal sugaha wadanka Sacuudiga Mohammed bin Salman wada hadalku waxa uu taabanaya xiisada gobolka bariga dhexe Sacuudigana waxa ay markaan hor dhigan Trump dalab aad u weyn oo xasaasi ah tan waxay u badan tahay Trump inay ku qasabtay dagaalkii uu ku baaqay in uu dib uga laabtay dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa ku dhawaaqday in saddex ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay ku burburiyeen duqeymo ka dhacay saldhigga Al-Asraq ee ku yaala gudaha wadankaasi Jordan halkaas oo maalmihii ugu dambeysay ciidamada Iiraaniyiintu ay garaacayeen wararka kale aan idin haynay khiyaarta ay nala socotay haddii aan si gaar ah u eego ciidamada ilaalada kacaanka Iran war ayay ka soo saareen xaaladaha ugu dambeeya ee dagaalkaasi iyo waliba meesha iminka ay wax taagan yihiin qodobadaas iyo kuwa kale oo dulmeeri doona wararka wakaaladaha wararka warbaahinta iyo muxalliliinta ay ka sheegeen dhacdooyinka waaweyn ee gobolka bariga dhexe ayaan khiyaaray idin la wadaagi doona meel kasta oo aad joogtaan su'aasha maanta iyo tabinteennana waxay tahay Trump ma saxba Iran inuu ka helay codsi la xiriira dagaalka inay joojiyaan oo wada hadal la aado mise isaga ayaa qaatay go'aanadan oo iminka xalka degdega ku gaaray khiyaaray magacaada iyo meesha aad joogtaan ku bilaaba isla markaana aragtideena qaybta hoose faallada ayaad noogu qori kartaan idinkoo dhinaca kalena YouTube-ka subscribe saaraya muuqaalkana si uu Donald Trump xalay oo dhan waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu amray bilaabitaanka weerar iyo duqeyn xoog leh oo lagu qaadayo saldhigyo kala duwan oo ciidamada Iiraaniyiintu ay leeyihiin duqeyntan xitaa ujeedadeedu waxay ahayd inay saameyso kaabayaasha dhaqaalaha ee wadankaasi waxaana uu ku tilmaamay mid uu doonayo duqeyntii kala baxa sida uu hadalka u dhigay isagoo ujeedadiisu ay tahay in dalkaasi Iran iyo waliba ciidamada Mareykanku ay isku daaleen marka la fiiriyo labada sano ee harjadka iyo waliba isjeedka uu ka taagan yahay gobolkaasi bariga dhexe hasaatee waxa uu ugu dambeyntii ku dhawaaqay duqeyntii in dib loo dhigay sababo la xiriira codsi ka yimid dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran tan waxay ka dhigan tahay in Trump markan uu si weyn banaanka u keenay in la gaarayo heshiis isla markaana Iran ay u sandulaysan tahay Washington madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in uu baajiyo weerar military oo qorshaysnaa in lagu qaado Iran kadib markii uu sheegay inuu codsi ka helay Tehran iyo dalal kale oo bariga dhexe ah kuwaas oo ku aadan in dib loo dhigo howlgallada si fursad loo siiyo booyri heshiiska diblomaasiyadda ee muhiimka qoraal uu ku daabacay bartiisa Truth Social Trump waxa uu ku sheegay ciidamada Mareykanku inay ahaayeen kuwa si buuxda ugu diyaar garoobay fulinta weerarka isagoo xusay in heerka diyaar garowga militariga uu ahaa kii ugu sareeyay baaliyay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanku sheegay in Iran iyo dalal kale oo gobolka ay ka codsadeen Washington in la hakiyo weerarka maadaama ay Iran astaamo heshiis oo horseedi kara in xal la gaaro xiisadana la dejiyo ay la timeen heshiiska la soo jeediya ayuu Trump waxa uu ku tilmaamay inuu yahay mid laba qodob oo muhiim u ah dalkaasi Mareykanka sababta dagaalka iyo diriirta ay ugu jireen ay sidaas tahaba Trump waxa uu sheegay in heshiiska hordhaca uu ka kooban yahay in si degdeg ah oo buuxda dib loogu furi doono
marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz iyo in la soo afjaro buu yiri waxa Mareykanka uu ku tilmaamay halista barnaamijka nuclear-ka Iran. qodob kale oo muhiim ah ayuu soo qaado in si dhaqso ah loo gaaro heshiiska madambaysa oo dhinacyadu ay aqbali karaan inta wada xaajoodka iyo wada hadalladu ay soconayaan. wuxuu intaas ku daray in uu aqbalay baajinta weerarka isagoo sheegay in tallaabadaasi ay dan u tahay caalamka isla markaana ay fursad u noqon karayso mustaqbalka wanaagsan iyo horumarka dhaqaale oo Iran ah haddii heshiis rasmi ah oo si dhaqso ah loo gaaro sida uu hadalka u dhigay. Trump ayaa sidoo kale sheegay in Israel ay ku biirtay qorshahaasi waxaana uu ugu baaqay dhammaan dhinacyadu inay dadajiyaan dhamaystirka heshiiskan muhiimka ah. diyaargarowga militariga Trump waxa uu ku tilmaamay in markan ay tahay mid muhiimadiisa leh marka si weyn loo eego ciidamadiisa sidii ay ugu diyaargaroobeen duqeymaha ugu dambeeyay. hadalka Trump ayaa yimi maalmo kadib markii warbaahinta Mareykanku ay sheegeen in Washington iyo Israel ay diyaariyeen weerar ballaaran oo lagu beegsanayo xarumaha tamarta ee Iran iyadoo go'aanka ugu dambeeya uu sugayo ogolaanshaha Trump. wararku waxay sidoo kale sheegeen in Washington iyo Tel Aviv ay iska kaashanayaan qorshaha weerarka halka Trump uu la tashiyo la sameeyay saraakiisha sare ee maamulkiisa. Trump ayaa horey u sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono cadaadis uu saarayo Iran ilaa ay si dhaba ugu laabato weeri wada xaajoodyadana ay u soo gasho isagoo uga digay Tehran inay la kulmi doonto cawaaqib culus haddii ay sii wado xiisadan sii xumaanaysa ee gobolka bariga dhexe. dhowr wadan oo kala duwan ayaa wararku saaka sheegayaan inay wadaan wada hadallo diblomaasiyadda la xiriira oo dhammaantood taabanaya sidii horey loogu socon lahaa. dowladaha Sacuudiga, Qatar, Turkiga iyo Pakistan ayaa xoojiyay dadaalada diblomaasiyadeed si loo dejiyo xiisadda u dhaxaysa Washington iyo Tehran. wasiirka amuraha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa isna ka digay in weerar kasta oo cusub oo Mareykanka ama Israel ay ku qaadaan Iran ay la kulmi doonaan jawaab adag oo u dhiganta samarkaana labada dhinac ay si weyn isugu goodiyeen. sidoo kale wasaaradda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa ku tilmaantay dhexdhexaadyaal ka socday Qatar iyo Oman ay wadeen wada hadallo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran si dib loogu furo marinka Hormuz loona abuuro jawi ku habboon dib u soo laabashada wada xaajoodka. inkasta oo la sheegay baa layidhi in Iran ay horumar hordhaca gaartay haddana weli lama shaacin heshiis rasmi ah oo ugu dambeyntii dagaalka lagu soo gabagabayn karo. Hormuz oo udub dhaxaad u ah khilaafaadka ayaa hadda waxa uu yahay qodobka ugu weyn ee doodu ay ka taagan tahay. marinbiyoodka Hormuz oo ah marin istiraatiiji ah oo ay maraan qayb weyn oo ka mid ah dhoofka shidaalka adduunka toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa halkaasi ka jiray xiisad aad u sii xumaanaysay oo sii kordhaysay iyadoo Mareykanka uu ku adkaystay howlgalladiisa badda halka Iran marar badan ay ku hanjabtay inay ka jawaabi doonto weerar kasta oo lagu qaado dhulkeeda ama danaheeda gaarka ah. haddii hadallada diblomaasiyaddu ay ku guuleystaan in la hirgeliyo isfahamka uu Trump sheegay waxay noqon kartaa tallaabo muhiim ah oo lagu dejinayo xiisadda gobolka. si kastaba heshiiska kama dambaysta ah ayaa la eegayaa bal halka uu ku soo gabagabeeyo xiisadda iyo colaadda ka aloosan gobolkaasi bariga dhexe. ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxa ay ku dhawaaqeen in ay burburiyeen 3 ka mid ah diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee F-35 loo yaqaano oo ku sugnaa saldhig ku yaala gudaha wadanka Jordan duqeymihii ugu dambeeyay oo ay ka sameeyeen ama ay ku qaadeen gudaha wadankaasi. ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ayaa ku dhawaaqay in sabtidii weerar gantaalo balaastig ah ay ku qaadeen saldhigga cirka ee Al-Azraq ee ku yaala Jordan kaas oo ay sheegeen inuu isticmaalo ciidamada Mareykanka ay sababeen bay yiraahdeen qasaarooyin aad u weyn. sida lagu sheegay waraysa ka qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda Iran ee IRNA la yiraahdo ayaa lagu bartilmaameedsaday baa la yiri hangar lagu dayactiro diyaaradaha iyo goob ay ku sugnaayeen diyaaradaha dagaalka ee F-35. ciidamadu waxay sheegeen in la burburiyo 3 ka mid ah diyaaradaha noocooda uu yahay F-35 iyadoo sidoo kalena la dhaawacay diyaarado kale oo halkaasi yaalay
oo burbur uu soo gaaray sida ay tilmaameenba xog sirdoon oo ay ka heleen baa layidhi goobta weerarka lagu qaaday. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu xusay in 30 luulyo ay hore u sheegeen in isla saldhiggaasi ay ku burburiyeen siyaarad kale oo F-35 ah isla markaana ay dhaawac soo gaareen 3 kale sidoo kalena ay ku dhinteen saraakiil iyo farsamayaqaano ka tirsan ciidamada Mareykanka oo ka shaqeynayay howlgalka dayactirka diyaaradaha. ciidamada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan waxay sidoo kale ku sheegeen weerarkan inay jawaab u ahaayeen duqeymihii Mareykanka isla markaana ay ku tilmaameen inay taageero u yihiin shacabka wadanka Jordan. sheegashooyinkan ayaa waxa ay ka yimaadeen oo kaliya ilaalada kacaanka ee Mareykanka. waqtiga la baahiyo warkan ma jirin xaqiijin ama diidmo dowladda Washington ka yimi ee ku saabsan dagaalkan iyo waliba xalka kama dambaysta ah ee ujeedadiisu ay tahay in dagaalkan guud ahaantiisba la soo afmeero. dowladda Sacuudi Arabiya ayaa saameyn weyn ku lahayd hakinta duqeymaha dagaalka iyo weerarka Trump uu ku doonayay inuu ku soo gabagabeeyo colaadda muddada dheer ka aloosneyd gobolka Bariga Dhexe. wakaaladda wararka dowladda ee Wasl yiraahdo ayaa tilmaamaysa marka la eego wada hadal xasaasi ah oo dhaxmaray boqorka dhaxal sugaha ah ee wadanka Sacuudiga ana hogaamiyaha golaha wasiirada ee Riyadh Mohammed bin Salman iyo Trump in ay isla qaateen muhiimadda ay leedahay furitaanka marinka Hormuz. taasina ay keentay dagaalka in Trump uu ku baaqsado in si degdeg ah loo joojiyo. arrintan waxay tahay mid dhabarjab ku noqonaysa nidaamka Israa'iil oo doonaya dagaalka si dhammaystiran in loo galo. warbaahinta Mareykanka ee CBS yiraahdo ayaa sheegtay in dhaxal sugaha Sacuudiga Amir Mohammed bin Salman uu qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isagoo ka codsaday in uu isdejiyo isla markaana uu ka baaqsado weerar cusub oo ka dhana wadanka Iiraan. sida lagu sheegay ila xog ogaala oo la hadlay CBS wada hadalka labada hogaamiye ayaa si buuxda diiradda loogu saaray xiisadda sii xumaanaysa ee Bariga Dhexe ee Iiraan. intii uu socday xiriirka Amir Mohammed bin Salman ayaa mar kale la muujiyay walaaca ku aadan bartilmaameedyada Washington ee qorsheyn karto in ay beegsato kaabayaasha muhiimka kaas oo wadanka Iiraan ku yaala isla markaana xaaladda nuglaashaha wadanka Iiraan sii xumeyn karta iyo waliba dadka rayidka inay waxyeello ballaarani ka soo gaaraan dagaaladan. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in dhaxal sugaha uu uga digay Trump in uu weerar cusub lagu qaado xarumaha muhiimka ee Iiraan ay horseedi karaan in si ballaarashada colaadda gobolka taas oo saameyn karta baa layidhi amniga iyo dhaqaalaha Bariga Dhexe. ilaa iyo hadda aqalka cad si rasmi ah ugama hadlin faahfaahinta wada hadalkan mana jira baa layidhi caddeyn muujinaysa hakinta ama dib u dhigista duqeymaha Mareykanka ay si toos ah uga dhalatay baa layidhi Sacuudiga. warbixinta CBS ayaa kaliya muujinaysa in Sacuudiga uu dadaal diblomaasiyadeed ku doonaya in la yareeyo xiisadda iyadoo aan weli la xaqiijin in Trump uu go'aankaasi ku bedelay cadaadis ama codsiga amiirka ka soo baxay iyo in kale. qaybta inala socotay inta aanan u gudbin xiritaanka barnaamijka iyo gabagabayntiisa haddii aan idin xasuusiyo su-aasha maanta ah oo aad faallada ku dhiibanaysaan waxay tahay Trump marka la eego joojinta dagaalkan uu ku dhawaaqay in uu qaatay iyo heshiiska uu ku tilmaamay dowladda Iiraan in ay doonayso waxaa lagu macnayn karaa colaadda gobolka Bariga Dhexe in ay soo gabagabooday mase Trump ayaa isdhiibay oo Iiraan ayaa guul gaartay mase sida uu Trump hadalka u dhigaya ayaa sax oo Iiraan ayaa codsatay dagaalka in laga joojiyo. magacaada meeshaad joogta ayaad ku bilaabi kartaa adigoo kadibna qaybta hoose faallada aragtidaada ku qori kara sidoo kalena YouTube-ka laag saari kara si muuqaalkan uu meel fog u gaaro. ikhiyaaray kulan wanaagsan.